anaguna waxaan kaga furfurna ma haysano aabahaya uu dhintay agoon baan nahay marka ummadda muslimiinta meel kasta jooga xabse aadan maxamuud waxay muddo gaadhisay sanad yadii qoyskeeduba la murugoonayeen walaashoodii curad iyo saygeedii oo lagu garaacayo saxaraha Liibiya wala waxaan ku noolay ma jirto wala saas jirkeyga dhiig uga daaya wala wadarkiisii noloshaan ku noolaay nololaay wala meesha ay weegin lacagta sidoo ugu dhaqsaa badan lixda cashad qabsateen maanta shalay gaadhe wala sidoo ugu dhaqsaa badan laabtii cid walba oo sheeg hal maalin haday dhaafto wallahi billahi tallahi anay naftaydu u maqantay wala wadarkiisa sidaan u xidhanay la idilay wala hariyaabeen saas la idilay ilaa lacagta la iga soo diray boqolka dambeeyay la iga soo xawilana habeenina la iga cafin oo qoyska Ikraan oo ay ku jirto inan yar oo ay iyadu dhashay isla markaana ay ka tagtay markii ay tahriibisay ayaa bulshada Soomaaliyeed ka codsaday inay badbaadiyaan nolosha inantan dhibanaha ah iyo saygeeda oo labadaba jirdil iyo xadgudub bini'aadantinimada ka baxsan loogu geystay saxaraha Liibiya Soomaalida meel kasta joogan waxaan soo jeedinayaa inanteedii oo curadeedii Ikraan Aadan Maxamuud Faarax la yiraahdo dadka muslimiinta walaalaha inay naga soo caawiyaan imika muddo 10 bilood ku xiran Liibiya inan yarna nagaga tagtay iyo ninkeedii israacay muslimiinta walaalaha waxaan ka codsanayaa inay naga soo caawiyaan walaasha waa curadeedii meel baa lagu dilayaa uma dul qaadan karna oo hinteeda iyo dhibaatadeeda muslimiinta waxaan ka codsanayaa walaalaha dal iyo dibad meel kasta joogaanba inay naga soo caawiyaan inanta hal caawiyo cadawga ha laga furo cadaweyaan cadawga ha laga furo 6 casho imika uu qabtay 6 maalmood maanta bishu waa 29 bishii shanaad bisha dambe mala 6deeda miya talo ay 6 casho ku buuxdaa 6da casho marka dhaaftaa wixii waan ka taqalusinaya hooyo Sahra Rooble Yuusuf waa hooyada dhashay Ikraanta nolosheeda loo qabtay 6 cisho waxay bulshada Soomaaliyeed ka codsanaysaa inay inateeda badbaadiyaan si ay mar kale nolosha ugu midoobaan waxaan ahay hooyo dhibaataysan oo ay ka tagtay inanteedii curad ee ugu weynayd caruurta inanta yarna ay gaga tagtay inanta yar hooyadeedii aabaheed way israaceen kadib waxay joogaan labadiiba Liibiya inankii uu liitaa wuu xanuunsanaya waa la dilay xabad baa lagu dhuftay iyadina aad bay u dhibaataysan tahay dabadeedna awalba iyadoo dhibaataysnayd ayaa imankana dhibaato xun laga soo duubay oo camera video laga soo duubay marka dhibaatada ayaa haysata inantu waa agoon weeye waa la jirdilayaa timihii waa laga xiiray xaaladeedu way xun tahay waxaanu nahay dadin yar ah oo agoon ah oo aan waxba haysanin camalna haynin caruurta iyada ugu weyn marka waxaan ka codsanayaa ummadda muslimiinta ah wixii ay ugu caawin karayaan inanta yar ku soo caawin karayaan inay ugu caawiyaan ayaan ka codsanayaa ummadda muslimiinta meel kasta oo ay joogaan si naxariis leh inkastoo ay jiraan dhaqdhaqaaqyo ay qoyskani sameeyeen si loo caawiyo inantan way awoodi waayeen inay caawiyaan Liibaan Cismaan Cali Television Karial Hargeysa